ciidamada isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo ka howlgala ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaaladaasi waxa ay ku soo qabteen 20 ruux oo ku eedeysan falal amniga lid ku ah sida warbixinta warkaan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyana Cabdirasaaq Maxamed Axmed iyadoo wali magaalada Gaalkacyo ay ka soconayaan howlgal xooggan oo lagu sugayo amniga gobolka Mudug isla markaana ay iska kaashanayaan ciidamada militariga iyo booliiska federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa maanta taliska ciidanka booliiska Galmudug uu soo bandhigay ku dhawaad 20 ruux oo ku eedeysan falal dambiyeedyo kala duwan oo lid ku ah xasiloonida iyo amniga ka jira magaalada Gaalkacyo kuwa lagu soo qabtay howlgallo saacadii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliiska xasilinta gobolka Mudug ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada Gaalkacyo taliya ku xigeenka ciidanka booliiska dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gaashaanle sare Cabdi Jaamac Abdulla Xabeeb oo la hadlay warbaahinta qaranka kadib markii uu saaka taliska qaybtu uga warbixiyay falal dambiyeedyada ay ku eedeysan yihiin maxaabiistan ayaa uga mahad celiyay ciidamada xasilinta gobolka Mudug ee militariga iyo booliiska howlgallada iska kaashanaya isla markaana laga hortagayo qaswadayaasha diidan nabadda dalka isagoo dhanka kalena faahfaahin ka bixiyay falal dambiyeedyada lagu soo qabtay eedeysanayaasha maanta la soo bandhigay marka hore waxaan u mahad celinayaa runtii saraakiisha ciidanka booliiska ee Galmudug iyo muxuu ahaayay ciidanka xasilinta xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii isku taxallujinay in gobolkan ammaankiisa ay soo celiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa TV-ga qaranka oo si maaragtay joogto ah uga shaqeeya deegaankan iyo waxa ka jira xaaladaha ka jira dhalinyarada caadeystay inay ammaanka maalin walba ay ka hor yimaadaan ama dadka deegaanka jooga ay dhacaan naftooda iyo maalkooda in badan baan uga dignay in badan baan ka wacyi gelinay waxay soo dhaceen awr dadkii deegaanka deganaa awrtiis ah qaar waxay galeen wadada waa baabuur islaameed baa la xabadeeyay dhammaan gacantaan ku soo dhigno waa xirxiran yihiin waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa ciidanka xasilinta ee xoogga dalka iyo ciidanka booliiska muxuu ahaayay Gaalkacyo qaybta Gaalkacyo labadaba iyo isku darkaba waa u mahad celinayaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.